بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahadle subxaana wa tacaala ilahay keligii mahadle. Marka horeysa waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland iyo dadka ummadda muslimiintaba Ramadaan Kariim, Ramadaan Kariim. Waxaan halkan maanta isku nimeynaa inuu u quuskoyno dadka wax magaradka ah mooday inay Soomaaliland kala maqanto dildilacsan tahay. waxaan halkan tusinaa in Soomaaliland madaysan tahay. saddexda xisbi waa joogaan, dawladdiina waa joogtaa. waxa anagu ku kala qaybsanay waxa weeye waa issues hoose, laakiin markay noqoto danta qaranka ee difaaca qaranka waa lagu midaysan yahay. been baa loo sheegay, dadkii la yidhi waa ku qaybsan yihiin, furanka ku kala baxeen. waxaan hambalyo u dirayaa geesiyaasha reer Soomaaliland ee sida wanaagsan geesinimada ah u daafacay gardaradii lagu soo qaaday 14 iyo 15. dagaalkan socdaa maaha dagaal ay wado reer Garowe, waa dagaal ay Soomaaliya wadaaway. waxaan aad iyo aad aan ugu baaqiyaa isimada reer Garowe oo in fact aan aad iyo aad u jecelahay nabadda ka taliya, danta ka taliya inaan la isticmaalin baan leeyahay. waxa weeye farmaajo iyo maamulkiisa xamar waxay ka dhigteen muddaantii sidii Soomaaliland loo baabin lahaa. ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa baabiyey. way iloobeen wixii loo dhaariyey oo ahayd inay Soomaaliya ay nabad ka dhaliyaan, midnimo ka dhaliyaan, horumar gaarsiiyaan. horumar ha joogay horta bal deganaansho gaarsiiyaan. waxay ku dhaqaaqeen oo horeyntiiba inay Soomaaliland si loo majacaabin lahaa. waxaan leenahay Soomaali uma baahna maanta dagaal uma baahna. waxay u baahan tahay nolol bay u baahan tahay, faqriga kala dagaalanta u baahan tahay, nabad in lagu soo celiyo u baahan tahay. anagu 17 sannadood waxaanu ku jirnay dib u dhis iyo horumar si loo gaari lahaa. waxaanu ka qoomoonay dhibaatada ka socota Soomaaliya. waxaan u aragnaa arrinta Soomaaliya in arrin Soomaali tahay, xaqna aan ku leenahay inaan ka ilaalno rol wanaagsan oo nabad ku soo dabaalo. waxaan arkaa Michael Keaton waxaan leeyahay farmaajo ma xukumo, adaa xukuma Soomaaliya. amarkii aad bixisay waanu diidnay, nama xukunto adigu. annaga iska iyo xabadda jecel joojino, diyaarna u ahayn, haddana diyaar u ah inaan xabaddaba xaggay ka dhicin. laakiin waxaa isweydiin leh aduu xabadda ma joojinaysaa Michael Keaton? adaa wada, adaa lacag badan ku qaata, adaa rose picture ka muujiya aan ka jirin Soomaaliya marka security tagtid, adaa diyaaradaha ka bixiya. dagaalka naga joojiya Michael Keaton, ad farmaajo isticmaalaysa baa leh. waxaan cambaaraynayaa kooxda isku tagtay Baydhabo ee gartay Soomaaliland gaadhay. taas waxayna tusisaa hoggaan xumaanta iyo caqli xumaanta siyaasiyiinta Soomaaliya. nimanka yidhi kara waxa weeye waxay ka tirsan tahay maamulka Garowe, juqraafiga ma yaqaan iyo taariikhda. waxaa noo muuqata inay idin hogaaminayaan, been idin hogaaminayso. waana cambaaraynaa go'aan kale ka soo baxay. waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland waxaa soo dhiirigeliyey farmaajo kooxdiisa. waxa weeye waa qulquleed ka socota cilaf weyn. waxaa soo dhiirigeliyey kuwa waxba qabsan waayey intay Yurub iyo Mareykan tageen, waxna baran waayey, waxna dhaqaalan samaysan waayey, ee tamar ka dhigtay WhatsApp-ka qabyaalad iyo kala qaymis Soomaaliland ku haya. arrintaa waynu gelinaa insha Allahu tacaala sidaan maanta u galnay arrintaa wax maalgaradka reer Soomaaliland isku yimi saas loo geliyo. waxaan ka gaari doonaa insha Allahu tacaala nabad waarta ayaynu ka gaari doonaa. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya farmaajo kooxdiisa hadiyadii ay noo soo direen ee technical-ga ahayd ee noogu soo talagaleen inaanu ku marno 15 May naga habsaantay waa idka ajiibnaa leena. taangii waa daga helnay, jiishtideeshii waa haynaa. inta kalena insha Allahu tacaala haddaad keentaan waxba kama qabno, laakiin hadiyadda waa helay. waan mahadsantihiin. waa leeyahay Soomaaliland.